soo dhawaada daawadayaal waa ashqaraar waxaad arkaysaa markaad eegayso shay isbedbedelaya oo midabaynaya oo sinqado tisqaad leh gadaan u tilmaamnay eeg jeegaantuba waxay ka bilaabmataa cudoonka daruuraha da'aya markaasay sii labalaxaadsataa oo ay liinbaxdaa midabo cudoon oo ishii aragtaaba jeclaysato laakiin waxaan ka hadlaynaa jeegaan iyo fadgalbeed toona ma aha ee muxuu yahay talow madowga cirka mawjadaha badda quruxdiisa geel dhalay iyo midabka xoolaha toona ma aha ee muxuu yahay talow ashqaraarku waa gacanta sida raandhiis kale wax u sawirta tiyo maskaxda iyo maanka cuskan mar kale ashqaraarku waa farshaxanka Soomaaliyeed ee la holin waayay ee Amiin Caamir Maxamed ood Amiin artist ku garan og tahay inta uu barnaamijkani socdo ayaanu qof ahaan si dhow ugu baran doonaa Amiin Caamir soo dhawaada daawadayaal oo kuunu macna halka waxaad u timaadeen aan hagarnayn bad caawa naga helaysaan markii sinaarowgii barnaamijku dhammaystirmay Amiir Caamirna naga ogolaaday inaan warino sheekada farshaxankiisa ayaan u xirxidhay magaalada uu degan yahay Edmonton halkaas waxa igaga sii horeeyay Maxamed Axmed Ilkacase oo sahamiyay goobta iyo goorta duubitaanka barnaamijka qaybta codkuna waa Khadar Maxamed Xaashi dadaalada isbabar socdayna waxa ka soo baxay barnaamijkan ashqaraar Amiir Caamir Maxamed waxaan naga wargelinay inta barnaamijku socdo waxaan ku gormagoyn doonaa ra'yi ururin mawduucan xiriir la leh nima waxa la yiri beer asoo falanayo ayaa waxa u yimid nin socdo waa salaam alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaalo waa dhunsanahay ina itilmaantidaan rabaa yaambadii oo dhigtay wuxuu yiri ma dhunsanta xagee rabta meel hebel aan rabay haye afarta jaha ma kala taqaanaa koonfur iyo waqooyi iyo bari galbeed ma kala taqaanaa marxuu maya ma kala aqaano haddii aan kala aqaano waa ii sahlanaa lahayd meesha aan aado ninkii jawaab kuma celin yaambadiisoo qaatay falowgii u noqday ninkii cabaar mugoo taagnaayo rooniya waa kula hadlaye jawaabna ima siinin sida muxuu intuu dhigtay rooniya waxaan kuu sheegaa u dhahay adiga mushkiladaada tilmaam ma xalliso gacanta inta laga qabto meeshii in lagu geeyo u baahan tahay markii gurigiisa aan ugu tagay Amiin si diiran ayuu ii soo dhaweeyay isaga iyo qoyskiisuba ugu horeynba waxa yaab leh kaydka sawir gacmeedka gidaar walba gurigiisa suran biladaha iyo suugaanta uu ku foogan yahay dhageysigooda oo gabaya u badan Amiin waa nin sheeko badan wuxuu mar walba carabka ku hayaa Soomaaliya iyo siyaasadda aan deganayn ee ka taagan waxaan gudagalay ujeedadii ugu horeynbana waxaan weydiiyay damaca dawladda Itoobiya ee ku aadan Soomaaliya taas oo mar walba uu diiradda saaro Itoobiya Soomaaliya daacad uma haddii daacad tahay Itoobiya Soomaaliya intaas oo sanay ku dhex jirtay dawlad weyn waay oo Soomaaliya lamid ah way isku keeni kartay maanta waxaad dareemaysaa Puntland heshiisay la tahay Somaliland heshiisay la tahay inay weligeed iskuma keenin ee gacmaha isqabsada ma dhahin inay kala sii fogeysay mooy marka qof kasto wadani ah ama dareen wadani ku jira wuu dareemi karaa in Itoobiya aan maanta waxba noo qabaneen inay Soomaaliya kala qaybiso mooy
Soomaaliya isku soo macnaha dan ugu jirto Soomaaliya isku soo dhawaato si iyaga aragtidoodii marka waxaan u arkaynaa cadowga Soomaaliya inay tahay qof kasta oo Soomaali ah uu dareemi karaa in Soomaaliya cadowgeeda Itoobiya aragti taa la mid ah waxaa buuggiisa halgan iyo hagardaamo ku daabacay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdilaahi Yuusuf Axmed oo buuggiisa ku yiri sidan Itoobiya waxay danaysaa inay dalka ka dhismaan maamulo yaryar oo aan midnimadoodu yeelan karin awood ay boodh kaga jafaan siyaasadii Soomaali weyn oo ah laf dhuunta kaga taagan Itoobiya. cutubka uu madaxweynuhu buuggiisa kaga warramayo siyaasadda dhabta ah ee Itoobiya ayaa marag cad u ah sawir gacmeedyadii uu wax badan Amiin Caamir ka soo saari jiray dawladdii TFG. Amiin Caamir nin talenti ah talenti hashaan uu soo masiwiray anaa ku ooyay baan ku dhahay macnaha meeshu ka hadlaayo iyo wuxuu u hadlaayo gadaalu ka hadlaayo Amiin Caamir nin gaari karo oo wax qora maba jiraba waa nin talenti oo adag weeyaan oo aan waliba mabdiisa la gabanin oo mabdiisa meel walba ka cadeynayo ka sheegay marka Ilaahay ha noo daayo Amiin Caamir Ilaahay waxaan ka bariyaa Ilaahay meedkiisa ilaa naloo soo sheegin Ilaahay cimri dheer ha siiyo waa u duceynooyaa Amiin Caamir waa farshaxanka ugu caansan Soomaaliya waana kartoomaystaha ugu gacanta fiican ee farshaxanka ka faalooda siyaasadda Soomaaliya waa aabbaha 2 wiil iyo 2 hablood waana shakhsi firfircoon oo jaaliyadda Soomaalida Kanada ka dhex muuqda dhowr sano ka hor waxaa soo baxay filim bilad soo hooyay oo ka warramaya farshaxanka Amiin Caamir waa kan directorka filimkaas oo u warramaya producerka Maxamed Daahir. Throughout the course of the film, Amiin actually mentored a young boy who was kind of going off on the wrong path, trying to steer him in the right direction. So if we take a look at the trailer, we can see that in action. ciyaalkii halkaan keennay oo noogu halkaan aan ku korin oo aan fursadahan helay oo fursadihii meel ku dayacay oo iyagana meel ay ku sugan yihiin aan dadkooda haysan hataa. Friends got me really corrupted, got me to do stuff that I was not supposed to. I've seen a lot of people get shot. I don't want to be seeing myself in that position. maadaama iskuulka cunugu uusan habi ku ahayn waxaa laga yaabaa inaan ku fiirin waxyaabaha inuu jeclaado oo masawirkan iyo waxyaabaha 1960kii guugii caanka ku noqday gobonimada siyaasadeed ee qaaradda Afrika ayuu Muqdisho ku dhashay Amiin Caamir yaraantiisina wuxuu iskuulka ka bilaabay xaafadda Shibis macallimiintiisii dugsiga ayaa judhiiba dhaaday oo dareemay hibada gaarka u ah wiilkan ee huma qaadashada iyo sawir gacmeedka waalidkiisuna waxay aad ula yaabeen da'diisa oo yar iyo sawir gacmeedkiisa oo ka fil weynaa markaas ayayna kula taliyeen inuu dib u dhigto wax sawiridda waxaan horta ku dhashay magaalada Muqdisho 1960kii waxaan iskuul ka bartay isla Shibis ayaan ku dhiganay barbaarinteedii adiga anigoo yar ayaan horta sawirka leegu arkay dhinaca farshaxanka markaan ka lahado marka waxa igu dhiirin gelin jiray aabahay iyo waxa jiray wiil walaalkayga oo isna wax sawiri jiray oo adiga hal sano iga weyn aniga asaad tartan noo socday xaafadda markaan joogno guriga kale iskuulka markaan tagno aniga mashquul waxaan ku ahaa in aan sawirada sii kordhiyo iskuulka xataa waa leegu yaqaanay sawirka maalin waxaa jira iskuulada ee leeyihiin xaflado oo ama iskuulada markay soo dhawaadaan in la xiro iskuulada xafladahaasi marka waxaa ahaa ninka kaliya loo yeeri jiray oo sameyn jiray sawirada intaan iskuulka dhiganay ardada markay wax ku maqan yihiin for example duruusto kale aniga waxaan isku dayaa macalinka inaan sawiro wajigiisii siduu u eeg yahay inaan mashquul ku noqdo anoo waxbarashada wado dhanka kalena artskan aad u jeclaa oo marka sidii aan ku soo barbaaray galab jimcaad isaga oo Amiin dhulka dhuxul wax ku sawiraya ayaa waxa la soo joogsaday ergey uu soo diray ustaad Raashiyaana halkaas ayayna ka bilaabatay xigmadu marka waxa jirtay waqtiyo waxa jirtay maalmaha jimcaha kale ayadeeda oo degan xaafad kale ayaa waxaan u qaadi jiray dhuxusha leegu dhiibi jiray dambiil dhuxul ah ee dhigi jiray ayadeeda u geey dhuxusha marka
dambiishaan kusoo waa lasoo lugeyn jiray marka waxaa ku taale magaalada muqdisho qofka soo xasuusto marshbiyadu dhul waaweyn oo xoogaa aan dadka meelaha dadka ku socdaan ah oo aad u qurux badan oo dhulka shimeynti yahay dhuxushii inaan la fadhiisto meel leer ah markaan helo galbihii waay ayaan dhuxushii inaan qaato xabad la soo baxo ayaa wax ku sawiri jiray galab walba oo jimco ay tahay sawiraan marka anaa macnaha isku maaweelin jiray intaan nasanayo marka maalin waxaa dhacday meeshaan wax ku sawiraayo marka hal meel ayaa u badnaa in mar walba wax ku sawiri jiray meeshii waxaa deganayeen qol ajnabi ah oo ruush ah ayaa meeshii deganayeen ninka ruushka marka jimco walba wuxuu iga daawadaa daaqada kore marka waa nin professor ah oo artiska dhiga waxaa loo keenay ninka marka dambe aan isbaran doonaa waxaa loo keenay ciidamada ayuu wax u samayn jiray sawiro iyo waxyaalaha oo xerooyinka lagu sawiro ayaa loo keenay ninkii marka maalin wuxuu ii soo diray shufeerkiisii wiilkaa yar meesha wax ku sawiraayo ii keen anoo marka dhulka u fadhiyo wax sawiraayo ayaa ninkii iga dul yimid oo yiri soo bax waxaan u qaatay marka ninkii inaan dacwad lee wadoba oo meesha maxaa dhuxusha ugu qorqortay leeyahay ninkii aan iska bariyay war hadda masaxa anaa tirtiraayo wixii dhamaanaa hadda kaliinka dhigaayo markaas ninka wuxuu leeyahay war wax lagama rabo ha tirtirin ninkaana ku rabo wal soo dhageyso anaa kuu tarjumayo soo bax cunug yar ah marka ninkii leegay ninkii wuxuu yiri si fiican u sawiraysaa waa fiican tahay anigana waxaan ahay macallin artiska wax dadka bara ka waran haddaan ku baro markaasna waan rabaa inaan barto markaas bari waalidkaaga keen aabahaaga ama hooyada qofkii jooga oo keen anoo faraxsan ayaan ka soo baxay dhuxushiyan geeyay maalinta aabahii aan soo kaxeeyay aabahii aan u keenay aabahii loo sheegay in iskuul meesha ku yaalo ciyaalka wax lagu baro iskuulkii marka waxaa dhiganaysay ilaa 10 qof oo adiga 2 gabdhooda ku jiray iyo 8 wiil anigoo ku darsoomay 12 aan noqonay ardada marka waxaa la hor fariisinaa nin walba wax ayaa la hordhigayaa wixii sawir wixii marka ina qiyaastii iyo sida u keenaysay wax rabo inuu arko ardadu iga dhex saaray marka kalaas kale oo kor ayaa leegay oo 2 nin kaliya wax lagu bari jiray anaa 3 ku noqday marka waxay ka dhigan tahay kuwaas waa ka soo gudbay macnaha waa isku level kala leegay oo أنا مركا وحان آد وحيسينا إنا كلركا رنجيكا سيد لو مريو إنا غيران ربا نكان قلنكيو نو بلاوي قلنكيو ودنا مالي والبا قلن لي سمينينا لابسكي معناها قلن قرقيان وحكو سمينينا أنا قوة دقدقا مركا وحان لي قلن قرقي قرمي لغا قدبها معلنكي ربا إنا ويديو معلنكي مركا سولي ولي كان إلا هيركا عن ربا مركا غارتين يا وقود بيسين حقي العاسل نينكي ruushka ahaa sida meesha iskuula joogno waqti dheer ardadii qaaraa ka baxday iskuulka qaaraa iska tagtay adiga waxaa ku haray aniga iyo gabar caasha la dhihi jiray caashkaaraan in la dhihi jiraa umaleynaa magaceeda ma xasuusto waqti hore igu dambeysay yaa ku harnay kadib gabadhi waa la guursaday way ka baxday aniga iyo macalinka isku harnay hatta ardadii kale oo levelka naga hoosay hatta way ka wada baxeen macalinkii saaxiib baan noqonay aadan saaxiib hatta mar xerooyinka oo ka shaqeeya asiga ayuu ii kaxaysan jiray gacan yar oo kale oo dhigi jiray hoosh bilow adiga anaa ka saxayo wixii qaldanto samee sidii marka u bilaabnay sidii markaysanimo ii geliyay adiga nin wuxuu ahaa oo aad markino oo inuu wax ibara ka muuqatay oo jecel wadiga muddo markaan ka soo shaqeeyay waa waqtigii waxa la gaaray oo wadanka ruushka laga saari jiray ninka sidii uu marka wadanka ka tagay shaqadiisii marka ayaa aniga la wareegay wuxuu ka shaqeyn jiray maalmo qaar wuxuu ka shaqeyn jiray wakaaladda madbacada qaranka ayuu wuxuu ahaa ninka kaliya artiska u fadhiya meesha anaa meesha tagay oo meesha lagu qoray wasaaradda warfaafinta asla xukuumaysay madbacadii iyo kulli isla xilliyadaas amiin waxa uu ku biiray wargeyska xidigtii Oktoobar wuxuuna soo saari jiray sawir gacmeedyo lagu bilo qormooyinka arrimaha bulshada ee wargeyska muddadii uu warsidaha ka shaqaynayay waxa uu ku yeeshay magac dheer wuxuu sidoo kale marar badan ku mutaystay xarig kadib anoo meesha jooga ayaan waxaan la shaqayn jiray wargeyska xidigta Oktoobar waxaan bilaabay marka kartuunka inaan ka sameeyo arrimaha bulshada
for example waxaan samayn jiray kartuunada oo dhibaatada dadka haysata for example koronto la'aanta meelaha biyaha fadhiistaan waxyaalahaas aan soo qori jiray marka shaqadii kale dhankaas dhinacan aan u batay oo xagga oo journaalkii marka waxyaalo badan oo sportiga wax ka qori jiray hadii badi waxay ahayd arrimaha bulshada waxa arkaysa ciyaaraha si gaar ah kooxaha u xiiseeya marka qoraal ahaan waxa laga yaabaa koox in laga badiyo markaas waxa laga yaabaa roob da'o ama in cadceed qorax aad iyo aad kul ay meeshaas ka jirtay marka waxa laga yaabaa in qofku inuu yani uu ku muujiyo yiraahdo maanta xareed baa la cabsiyey ama kooxdaasi qoraxda kulaato oo waa dhaqaaq waayeen kooxdii kale oo ku carartay iyo iyadoo oo loo soo qaadanaya sawir ahaan oo sawir gacmeedka farshaxanaha lagu soo gudbinayo sawir gacmeedyadii xilliyadaas caanka noqday waxaa ka mid ahaa sharoobada goolka oo ah ciyaar xiisa badan oo dhex martay laba kooxood maalmaha waxay ciyaartay madbacadda iyo muqdisho markaas madbacadii laga badiyay oo macnaa goolal badan looga badiyay marka sawir waxaa jira xusuus la oo dadka Soomaalida aad u xusuustaan oo aan ugu magac daray sharoobadii gool macnaa madbacadda la siiyay sharoobadii la siinayo oo goolka badan loogu dhaliyay Amiin Caamir sawirada uu dartood xabsiga ku tagay waxaa ka mid ahaa sheekadii dhex martay Rahi Kogaarka iyo kii shaqaalaha oo sidii uu u fakarayay si ka duwan ayaa loo fasirtay sawirkiisii rahan ka soo qaatay meelaha biyaha fadhiisa rah lagama waayo moogta rahiya marka ayaa biyaha fadhiisan jiray marka waxa la sameeyay wadadii waxa la sameeyay oo Kogaar ayaa wax loo sameeyay meel biyaha galaan oo aan biyo fadhiisanayn waxa la iloobo marka halkii kale oo guriga shaqaalaha meel ku taale marka si aan u xasuusiyo dawladda kaas harsan si aan u yiraahdo waxaan sameeyay marka rah oo macnaha ka soo socda dhinaca hodan number 4 ka yimid oo soo socdo Kogaar iyo qaar Kogaar ka soo baxay oo biyo soo waayay iska hor yimaadeen markaas xagee ku socoteen waxaan ku soconaa Kogaar biyaha meesha fadhiya markaas kuwa kale leeyihiin war biyo meesha waa la hagaajiyay shaqaalaha biyo fadhiya nageeya ani marka ujeedadeedu waxay ahayd inaan u tilmaamo dawladii xaggaas harsan waa macnaha joornaalkaas jimcihu soo bixi jiray waxaan isku dayi jirnay bal inaan wacyi gelino ama aan waxa loo yaqaano daliilka toosinta ku sameeyna hay'adihii markaa jiray oo dawliga ahaa oo dawladda kacanka ahayd marka waxaan waligii iloobayn markuu nagu soo biiray Amiin Caamir qayb laga siiyay safxad laga siiyay keligii safxadaas karikateer bay ahayd annagoo markaas dhaliilayna wakaaladii xoogga korontada Soomaaliyeed eenaya ayuu waxaan waligii iloobayn karikateerkii markaa uu ku fasiray waxqabad la'aantii markaa ka jiray xagga korontasiinta wuxuu sameeyay korontooyinkii iyo xargihii magaalada Xamar ku faahsanaa ee ballaaranaa ee laga filahayay inay dab soo gudbiyaan oo qofkii taabtan uu ku dhimanayay oo dumarkii Soomaaliyeed ay ku waranayaan dharkii taa micnaheedu waxay tusaysaa qof kastoo halkaa ka fiiriya in wakaaladaas wixii loo idbaday aysan samaynin Amiin waxa uu u wareegay dhinaca xisbigii hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed wuxuuna qayb ka ahaa farshaxankii Soomaaliyeed ee qurxin jiray bandhiga xisbiga Jaale Maxamed Siyaadna waxa uu igmaday ama soo u doortay in Amiin Caamir oo kaliya sawiro muuqiisa kadib waxa lagu soo wareejiyay xisbiga hantiwadaaga waxay lahaayeen meel lagu sameeyo boorarka waaweyn marka waxay hoostageysay xisbigaas aan u shaqeyn jirnay marka xisbigaas waxay sameyn jireen boorarka waaweyn oo magaalada lagu dhijiya badi marka boorarkaasi waxay tilmaamayeen waxyaalaha kacaanka rabo in dadkii uu sheego fikradihiisii iyo mabdigiisii waxaas ayaan wax ka sameynaynay boorarkaasi iyo sawirada Maxamed Siyaad oo kale oo marka dambe waxaan noqday ninka kaliya oo sameeya Maxamed Siyaad sawirkiisii marka waxaa ku noqdayna waxay ahayd waxyaalo waxaan ku dari jiray oo qurux badan si ayaan waxaan ka dhigi jiray in da'diisa xoogaa aan ka soo goyn jiray da'yar qurux badan sidaas uu ku arkay sawiradeedii marka uu yiri ninkan la sameeyay hadda kadib sawirada wixii aniga wajigayga ku saabsan sidaas aan ula wareegay adiga waxaa jiray waxyaalo badan oo aan ka soo shaqeeyay waagii kacaankii oo waxaa jiray
Octobertii oo kale hadda 22 October waxaa jirtay baabuuro waxaa jira dadan oo Octobertii ay soo mari jireen marka hay'ad kasto hal baabuur ay diyaarsan jirtay oo lagu muujinayo waxqabadkoodii 1979 Amiir Caamir waxa uu u dhoofay waddanka Ruushka halkaas oo waxbarasho dhanka farshaxanka ah muddo 4 sano ah ku soo qaatay markii uu waddanka ku soo laabtayna waxa uu abaabulay bandhig farshaxameedyo kuwaas oo markii dambena Kenya qaarkood uu ku qabtay hadday noqoto ruwaayad hadday noqoto filin hadday noqoto sheeko hadday noqoto farshaxan hadday noqoto qurxan hadday noqoto xasuus hadday noqoto ayn kasta oo warfaafinta ah wuxuu ka ahaa xibin culus oo haddaanu nahay hoobalada waa beri gaar ahaan haddaanu isku ahayn wasaaradda warfaafinta haddana hoobalada waa beri qayb libaax ku lahaa ama xasuustiisii Amiin Caamir taariikhdiisa lagama sheekayn karo intii taqaanina waa taqaan intaan aqoonna waa loo tilmaamayaa Amiin Caamir wuxuu ahaa geesi ku aanbaxay farshaxanka gacanta ama qofkii oo taagan inuu masawiro ama filinkii wuxuu ahaa iyo siduu ekaa inuu masawiro Amiin Caamir taariikh wuxuu ku lahaa wargeysyada ama wararka ay dawladda markaa ay faafinayso ninka darbiyada laga akhristo ahaa oo sheega wuxuu ahaa Amiin Caamir ninka marka riwaayad la dhigayo ka sheekeeya riwaayadda iyadoo qoraal ah sanadkii 1983 isagoo iskiisu abaabulay ayuu Amiin ka qayb galay tartankii farshaxanada qaaradda Afrika halkaas oo ay ku baratamayeen farshaxano ka kala yimi 40 dawladood maalintaas Amiin oo ugu daayaraa dadkii tartamayay waxa uu ku guuleystay kaalinta labaad sheekooyinka xiisaha badan waxaa ka mid ah tii dhex martay Amiin iyo gudoomiyihii gobolka taasoo ku salaysnayd sawirka madaxweynaha waxyaalo cajiib ah soo dhaxmaray waxyaalo badan hadda waxaa jiray mar baan waxaan tagay gobolada Soomaaliya ka mid ah marka ninka gobolka haystay ayaa wuxuu ii dirsaday sawirkii madaxweynaha waagaas madaxweynaha waxa ka ahaa Maxamed Siyaad marka wuxuu yiri Maxamed Siyaad oo beerihii oo gacan u taagayo ii sawir marka waxaan sawray Maxamed Siyaad oo beerihii ku sii jeedo oo gacan sidaa u haadinayo marka dhinac markuu qofku u jeeda hal il kaliya la arkaa ninkii gobolka haystay markaan sawirkii dhameeyay oo wuxuu u weydiiyay war ishii kala aaw yiri odaygu markaasaan odayga dhinac u jeedaa markuu dhinac u jeedo hal il kaliya la arkaa markuu soo jeedaa labada indho la arki karaa mayuu yiri wallahi inaan ka siisanayn waxa haddii labadiis indhood aan waayo bari waa xirantu yiri markaas sawirkiian dib ugu noqday inaan soo jeediyo odayga oo sidii traffic camal halka u jeedo oo gacantana halka ku haadina marka qofka markuu meesha tilmaamayo inuu eega fiican mugto dagaalka sokeeyayga dagaalka sokeeyayga inuu tabayaqa yeesho dadkayga maxaa u diiday dadkayga maxaa u diiday dartaan werintii abwaanka dartaan werintii abwaanka baroortii laga digayay maxay tugaydeedu yeedhay maxay tugaydeedu yeedhay Amiin markii burburka ka dhacay waddanka Soomaaliya adigu waxaad ahayd farshaxaniiste weyn oo waddanka Soomaaliya joogay muddana ka shaqeynayay markii burburku dhacay halkeed joogtay siyaasada waddankii uga soo baxday maxaase ugu xiiso badnaa aad xusi kartaa shaqooyinkii intii jabhadaha iyo waddanka burburka uu iskaga jiray waxyaabihii aad qabatay bal sheekadaadii halkaa nooga sii wad waa mahadsantahay Cabdirashiid horta markii burburka dhacay waxaan joogay Soomaaliya magaalada Muqdisho habeenkii oo qaraxa bilaabanayo oo magaalada isku rogmanaysay waxaan joogay National Theatre riwaayada socotay riwaayadaasi ayaan daawanaynay marka waxaan maqlaynay qaraxyo aad u xoog badan oo magaalada ka dhacay dadkii marka dareenkooda dhan wuu kacay
habeenkaasi ayay naxdanta noogu bilaabatay iyo dhibaatada marka habeenkaas waan joogay Muqdisho kadib waxaa magaaladii qabsatay jabhadii USC wadankii uu ka baxay madaxweynihii Soomaaliya dhibaatadii markaas ay sii xoogeysatay inta magaaladan joogay magaalada Muqdisho markii habeenkii saqda dhexe markii la gaaray adii dhibaatadii oo sii kordhayso guriyihii isku galaayo iyo boobkii aa bilowday magaaladii meelihii dawladda hay'adihii dawladda la boobayay oo adiga magaaladii dadkii qaarna way ku faraxsanaayeen qaarna way ka naxsanaayeen marka waxaan dareemaynay in dhibaato xoog leh soo socoto waqti yar kadib amiin caamir waxa uu madaxa farshaxanka ka noqday wargeys xiliyada ka soo bixi jiray xamar oo la odhan jiray Shabeelle Price kaasoo uu madax ka ahaa Cusmaan Xasan Weheliye tifaftira guudna cilmi mira jimcaale wargeyskaasi muu lahayn sawiro laakiin waxaa mar walba baga hore lagu soo sawiri jiray sawir gacmeedyada amiin oo bulshaduna aad u xiisayn jirtay sawiradiisii caanka noqday waxaa ka mid ahaa matoor qori la saaray qabyaaladda oo salaanka u goysay nabadda guryaha iyo gawaadhidii oo isku haysta laamiga iyo Cali Mahdi Maxamed oo ku dhex wareeray mujaahidiin iyo siyaasiyiin daraartan xamarka baxay dhaqaaqiyaan ka qaxay dhaguhu xabad bay maqlaan dhawaaq kale ma baxo markii nabaddii fogaatay geyigii Soomaaliyeed oo dhammina colaad noqday ayuu amiin caamir go'aansaday inuu dalka iskaga baxo wuxuuna galay safar dheer oo aan nasasho lahayn xasuustiisii ugu dambeysay Soomaaliya iyo sawirkan caanka noqday iyo wadamadii midba midka uu dhiibay haynooga warramo 91 bishii dhamaadkeedii ayaan ka baxay magaalada Muqdisho markii dagaaladii oo ciidid iyo Cali Mahdi si xun u dagaalamayeen marka waxaa dhacday inaan ka baxo magaaladii oo waxaan u dhoofay aan baawur ku baxay waxaan gaarnay dalka Itoobiya sidaan ku galay Itoobiya waxaan dhaxmarnay meelo badan adiga jidka inta sii soconay dhibaatooyin badan xataa mar baan baawurkii oo soconay dariiqii habeen ayaan meel aan geedo badan ku ool oo hal geed kaliya ku yaalo weyn ayaan istaagnay marka habeenkii meeshaan barin aan seexanay subaxdii markuu waaga baray ayaa dhinac laga yimid iyo dhinac loo socdaa la kala garan waayay dariiq aan ku soconay 2 saacadood aan dib u soo noqonnay dariiqii aan qabsanay markaan tagnay doolo waxaan sii joognay saacado maalmo kale haddana waxaan tagnay meel la yiraahdo Nageyle Boran yaan tagnay oo Itoobiya ku taal waa ka sii baxnay waxaan tagnay Addis Ababa markaan muddo joogay ayaa dhibaatooyin badan iyo shaqo la'aan iyo lacagta jeeb ku jirto way ka dhamaanaysaa cid wax ku siinaysan jirin marka Soomaaliyeedna soo wada qaxday oo nin walbo intii yar oo isku ilaalinaa jeebkiisa ku jirto sidaan ugu dhaxnooleen kadib waxaan helay dad Yemen u socda diyaaradda Yemen aan raacay oo Yementaan tagnay Yementii markaan muddo joogay oo meeshii shaqo la'aan ah kadib waxaan helay company oo warshad leh oo company aad u weyn ah warshado badan leh oo marka waxay lahayd qayb wax sawirta oo soo artistiyaal oo wax sawira oo qayb ka tirsanay ahayd qaybtii aan ku beeray ayaan muddo ka soo shaqeeyay kadib dagaaladii markay dhaceen ayaan ka soo gudbay Yemen waxaan ku soo noqday waxaan dooni ka soo raacay marka meel la yiraahdo meel gobol ka mid ah Yementa waxaan u soo baxnay marka Eritrea imaanay Eritrea waxaan joognay dhowr habeen kadib waxaan u soo gudbay Addis Ababa waan joognay Addis Ababa markii oo dhibaato badan aan aragnay haddana xoogaa markii aan Yemen ka soo laabtay xoogaa lacagaan iska haystay oo aan ku soo galay Addis Ababa inta ku noolaay xoogaa iskaga mooday marka dambe waxaan aragnay ani iyo familkaan ahayn kooxdii durdur oo ay degneed Addis Ababa marka waxay rabeen inay show u tagaan Djibouti marka dhaheen horaan ku kaxaysanayna niyo waxaan rabnaa inaa nagala qayb gashid showgaasi oo sawiro noo sameysay durduraan soo raacay Djibouti ay imaanay Djibouti marka xoogaa markaan joognay durdur way dib u noqdeen aniga marka waxaan go'aansaday inaan Djibouti iska joogo sababtoo
waxaan arkay dhul Soomaaliyeedu dadkii Soomaaliya af Soomaali lagu hadlaayo oo wixii aad wadankayga ku haystaan ku haystaa marka dad Soomaali oo la dhaqmi kartid ayaan ku arkay meesha isla xilliyadaas ayuu Amiin Caamir carwo uu ku iibinayo sawiradiisa ku qabtay Jamhuuriyadda Djibouti lacagtii ka soo baxdayna waxa uu ugu deeqay shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee carta xilliga uga socday barnaamij oo waxa la soo bandhigay dawladda Djibouti soo bandhigtay inay shir ku qabanayso Djibouti oo Soomaali lagu heshiisinayo marka anigana aad baan ugu farxay maadaama aan Djibouti joogo oo wadankeygii dib loogu heshiisinayo soo Djibouti dhexdeedii oo anigana aan kamid ahay dadka dhageystayaasha ama dadka qaybgalayaasha inaan wadanka ku noolahay marka waxaan marka maskaxdeeda ka soo saaray inaan wax aan u tiri karo Soomaali aan u taro wax alla waxay noqoto inkastoo aan qaxooti ku ahay hadana meesha laakiin dadaalkayga inaan laba kordhiyo oo aan waxaan u qaban karo wadankayga aan u qabto waxaan ku fikiray markaa in aan waxaan wadanka u tiri karo maxaa kamid ah waxaan irin bal farsamadaada bandhig ku samee oo musawiro badan diyaari lacagta ka soo gasha ku caawin dalkaagii macnaha intaa waxay iga tahay wadannimo iyo wadanka jacaylkiisii iyo dawladnimadii iyo wixii aan rabaa inaan helno waxaan go'aan ku gaaray marka anoo qaxooti ah inaan wadankayga u raadiyo lacag oo aan ugu deeqo dawladda Djibouti si aan gogashii Djibouti dhigayso aan gacan ka geysto maadaama aan Soomaali ah waxaan isku dayay marka bandhigii inaan sameeyo waxaan u yeeray safaaradihii wadanka ku noolaa hay'adihii UN-ta wax alla qof kasta oo macnaha dadka ganacsatada bandhigaan sameeyay bandhigii macnaha alxamdulillah waxay noqotay ilaa $150,000 markii la sarifo lacagta Djibouti lagu iibinayay faranka Djibouti markii la sarifay waxaan gaartay ilaa $150,000 Amiin Caamir oo habeenkan caawiyay haddii guusha intaa laga gaadhay 9 milyan haddii caawa keliya la ururin karay oo guddidu ay kartay ay awooday in lacag intaa lago 29 habeen keliya la helo sababta isaga ayaa iska leh waayo isaga ayaa ku deeqay ugu deeqay walaalihiisa Soomaaliyeed sawiradii ilaa 40 badooda oo halkan lagu iibsaday caawa sanadkii 2000 ayuu Amiin u dhoofay wadanka Canada wuxuuna markiiba ku biiray wargeys ka soo bixi jiray magaalada Toronto oo la oran jiray Somali Price kadib markaan Canada imid waxaa dhacday inaan isku dayay shaqooyin inaan oo xagga farshaxanka ah inaan shaqooyin aan ka raadiyo wadankii marka si dadkiina ay baran lahaayeen macnaha shaqooyinka artistka wuxuu kamid yahay waa ko in lagu bartaa markaas aad macnaha wax ku heli kartaa ama shaqooyin ku heli kartaa ama laga iibsan karaa sawiradaada marka wiil aan saaxiibnaha marka isku aragnay Canada magaalada Toronto markaan isku aragnay markaas wuxuu yiri wargeys oo waxa jira ka soo baxa Toronto oo Soomaali ku soo baxa ina qayb ka qaadataan oo wixii laga helo aad wax ka hesho marka nala shaqeey sidaan wargeyska u bilaabay oo kartuuna u sameeyay jiray oo siyaasadda Soomaaliya ku saabsan sanadkii 2004 ayuu si rasmi ah Amiin waxa uu ugu guuleystay inuu dhidibada u taago jariirada online-ka ah ee Amiin Artist taas oo muddo koobanba gudaheed aad loo bartay His political cartoons posted online attract more than 1 million hits a month 2006 wuxuu sii noqday caan wuxuu sii gaaray meel walba oo dad walba inay ka daawadaan siyaasadda soo sawiran marka sawirka sidiisina waa ma aha macnaha in aad sawir qurxoon kaliya aad samaysid waa inuu
wax gudbiya. farshaxankiisa badanaaba amiin waxa uu diiradda ku saaraa arrimaha siyaasadda ee waddanka Soomaaliya waxaana uu si gaar ah u xushaa mowduucyada waaweyn ee sida tooska saameynta ugu leh aayaha ummadda waxa uu wax ka sawiraa madaxda sarsare ee waddanka doorashooyinka dastuurka ciidanka maamul goboleedyada xagjirnimada musuqmaasuqa iyo hoggaanka gacanta u galay shisheeyaha oo mararka qaarkoodba aqoon-yahanku ay muran geliyaan siyaasadda guud ee lagu hago dalka Soomaaliya. It is time that those who are leading in this country and those who are playing a leading role in Kismaayo. marka waxaan la yaabay war ninka kan Somaliland fikirkiisa lagama jecla yaa uga soo warrama Puntland fikirkiisa lagama jecla yaa uga soo warrama dawladda federaalka fikirkiisa lagama jecla yaa uga soo warrama Jubaland lagama jecla fikirkiisa yaa uga soo warrama wax kasta oo waxaan ku dhici doona oo Soomaaliya siyaasadeeda ku wuxuu samaynayaa ka hor ayuu sheegayaa wixii marka su'aasha aan inta badan isweydiiyaa waxa tahay ninka kan yaa wuxuu soo sheegay dadkan wanted buuba ka yahay meelaan ka soo warramayo waa dadka ugu nacab waa dadka u hanjaba waa dadka caaya waa dadka u dhaarta haddana waxa madaxtooyadooda ka soo baxaya intaanay soo bixinin caawa amiin caamir uu ogyahay wuuna soo saaray su'aashaas oo kale ayaa maskaxdayda ka guuxaysay intii aan xog wareysanayay amiin caamir laakiin arrin weecsan weeyaan inaad wariye kala weydiiso halka uu xogta ka helo taa beddelkeeda waxaan diiradda saaray inaan u kuur galo bal sida uu u shaqeeyo amiin caamir ugu horrayntaba waxa uu xidhiir la leeyahay siyaasiyiin iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed kuwaas oo si cad uga warrama dhacdooyinka ka taagan geeska Afrika intaa kadibna waxa uu xidhiir la sameeyaa dhinaca bulshada oo yaalaba waxa uu ku xidhan yahay wariyaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada intaa kadibna waxa uu tifatiraa xogtii uu helay ugu dambayntana waxa uu soo saaraa sawirrada daawataan marka waxa jiro dad dhibsanayo waxa sameynaysid sababta dadka ani incab maanta waa dadka dulmiga jecel marka ma aha dad qofka dareemayo waxaan wuxuu yahay macnaha uu ku qanacsan yahay laakiin kan icaaya ama waxaan dhibsanaya waxa arkaysaa runtan sheegaynaa suxufiga runtuu sheegaa badi macnaha runtana waa qarar tahay amiin artist waa qof ilaahay talent siiyay waxa waaye maxay ahayd wiil Soomaaliyeed waxa waaye oo ka hadlayo ilaahayna fursad siiyay ka hadlayana talentigiisa buu ku fasirayaa his opinion iyo maxay ahayd current news iyo waxa hadda socdo buu wuxuu ka hadlayaa maxay ahayd buu sawirayaa oo aragtaha noo tusinaya marka anaga waxa nagala rabaa in aragtidiisii oo anaga naga dubneed bal inaan haddana il gaar ahaan ku fiirino oo soo dhaweeyno ba aniga ila tahay haddaan ka jawaabo sida dadka u qaabilaan anigoo nin dhalinyaro ah ku soo koray qurbaha aad iyo aad siyaasadda Soomaaliya uma danayn jirin mana aqoonin laakiin waxaan isdhihi karaa waxyaalaha ugu horeeyay oo itusay introduction ama faahfaahin kooban waxa weeye farshaxanka amiin caamir maxaana keenaysa wuxuu ku tusayaa sawir ah waqti munaasabad adduunka 24 saacadood 60 daqiiqadood ku dhex jirta saacadiiba mid ka mid ah wuxuu freeze gelinaya ama istaajinaya marxalad waqtigaasi ka mid ah sawir gacmeedka amiin caamir anigu waxaan ka aaminsanahay horta waan ka helaa oo aad baan uga helaayo ama aan ka dhibsado ama aan dhibsan mar walba laakiin waxaan qirayaa inuu sameeyo wax bulshada ka dhex soconaya oo dareen damul jadiid waxa uu farshaxanku uba arkaa inay yihiin koox dantooda gaarka ku ilaaway dantii qaranka waana sababta uu sida gaarka kooxdaasi ugu bidhaansado damul jadiid waxaan ka dhex aragnay dad kooban oo kaligood leh rabaa inay noolaadaan oo aan shacbigii waddanka u dhashay waddankii inayna danka lahayn ayaga intoodii kooban ayay inay noolaadaan ayaan ka dhex arkay marka dareenkaasi dad badanna waa ila qabaan oo Soomaali ka mid ah qofku wax dareemi karana waa u jeedaa sidoo kale wuxuu kartoonkiisa garab ku siiyaa bulshaweynta Soomaalida cadaaladda midnimada horumarka bahda warfaafinta iyo fanaaniinta wadnimadu nagama tagin
soomaalidu ma dabargoy dul xariirabanay zaada cali warsame ayaaba ka mid ahayd fanaaniinta uu sida weyn ula dhacsanaa amiin sababtuse maxay tahay ima muuqata aniga saada cali kuma ammaanin codkeedii iyo quruxdeedii iyo ama si macnaa kuma ammaan waxaan ku ammaanay qarannimadeedii gabar qaran waxaa saada cali waxaan isbaranay muddo aad u dheer ka hor adiga waqti dheer ayaan isnaqaanay intaa aan aqoonay waxaa ka muuqatay qarannimo waddan jaceyl gabar wadaniye ahayd marka waxaan mar walba aan u taageeri jiray aan ku ammaani jiray qarannimadeedii inkasta oo amiin dhamac iyo daba ka shida siyaasiyiinta soomaalida haddana waxaa yaab yeelatay taageerada uu siiyey ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu boggiisa ku soo sawiray isaga oo xambaarsan qalinkiisa kana mid ah shacabka taageeraya ra'iisul wasaaraha Farmaajo waxaan ka dhex aragnay daacadnimo iyo qarannimo marka aniga iyo islaanta suuqa fadhida oo caanaha iibinaysa qoryaha iibisa odayga suuqa jooga ama magaalada ka shaqeeya wuxuu ku taageer ayaan ka dhex arkay aniga marka isku aragti ayaan nahay anigoo maadaama aan ku hadlayo oo codka bulshada iyo waxa wadanka qofka wax u tari kara wadanka qofka daacadda ah marka taasi ayaa ii geysay inaan dadkaasi aan si gaar ah u fiiriyo marka hadda dad baa isweydiiyay xataa amiin xisbiga tayuu ka mid yahay oo xisbiga farmaajo ani xisbi aan ka mid ahay ma jiro waxaan ahay codka bulshadana dhinac ma raaci karo 15 sano oo amiin caamir degan yahay wadanka Canada waxaa la guddoonsiiyey bilado badan iyo abaalmarino la xiriira shaqada uu qabto biladahaas waxaa ka mid ah bilada Human Rights-ka oo sanadkii 2013 uu ka mid noqday 6 qof oo ku guuleystay amiin abaalgudyadan maxaad nooga sheegi kartaa yaasa ku kala siiyey intooda badan waxa horta ugu weyn abaalgudkan oo waxa siiyey Human Rights-ka okay aadiya hay'adda xuquuqda aadanaha adduunka kaasaan ku qaatay waxaan ku xigo Horticultural award waa kan waxay siiyeen Seminar Center-ka okay aadiya waa xarunta dadka soo galootiga ee weyna Canada iyo kuwa kale aad u fara badanna waan u jeedaa badanna waa jiraan qaarkood ay sureeyeen aadiya waxa u badan inta Soomaalida siisay aadiya dhamaantood marka waxay ka maqraati kacayaan inay dadweynuhu kaaga maqraati kaceen hawsha aad sameysay saas waa macnaha waxay dhiirigelinayaan waxa aadiya markaan helo waxaan Soomaalida ku taageeraan waxaan dareemayaa inaan wax weyn qabto jaamacadda Alberta ee wadanka Canada waxay bishii Abriil sanadkii 2011 albaabada u furtay farshaxanka Amiir Caamir isagoo halkaa ku soo bandhigay farshaxankiisa waxayna jaamacaddu umuurta ku tilmaamtay dhacdo qiimo badan magacaygu waa Xamse Xamed Guuled hadda waxaan ku suganahay magaalada London arday ah dhigta siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda fikirkayga ama aragtidayda ku saabsan Amiir Caamir waa farshaxan Soomaaliyeed hadba sawiradiisa ku kooba xaaladda taagan ee Soomaaliyeed haddii deegaan noqoto haddii gobol noqoto haddii qurbo noqoto iyo haddii gudaba noqoto inta haddaan sii dhaafo wax qabadkiisa san anigu u arkay ama uga faa'iiday waxaa ka mid ah sawiradiisa oo maadaama haddii aan dhigto arrimaha dibadda aan soo qaadano aan leeyahay xaaladda guud ee Soomaaliyeed arday ahaan aan soo qadan jiray jaamacaddii qofka farshaxanka ay si walba wuu uga duwan yahay dadka kale maxaa yeelay waxaa dareenkiisa yaalaaba ku barxan midabo dhammaystiran oo yaab leh muddo ku siman 25 sano ayuu amiin caamir qurbaha jooga ugu dambeyntiina waxaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan qurbaha qofka qurbaha jooga horaaba loo yiri macnaha dalaada lahayn dareen ku joog markii qurbaha aad joogto waxyaalo badan aad tawaysaa oo dalkaagii macnaha xataa ilaahu ma noqdo xataa weatherka maaragtay hawada dalkaagii ma helaysid meelaa ku dhalatay oo kale macnaha si kuma noqon karo meesha joogto laakiin wadankan xogaa waxaan dareemaynaa xorriyaddii waxaan dareemaynaa sida doontaa u hadli kartaa macnaha cid kugu qabsanaysa ma leh wixii qaldanaa sheegi kartaa macnaha afka lagaama xiraayo xorriyadaasaa macnaha intaasaa haysanaa laakiin qofka wadankiisa wuu u baahan yahay mar walbo meeshuu ku dhashay iyo dadkiisii iyo dhaqankii wax walba u baahan tahay
marka meel waxaa badi aan joognaa oo Soomaalida dhibaatada ka haysta waxa waaye marka wadankaaga aad joogtid xataa subaxdii markuu waaga baryayo salaada maqlaysaa waxaa maqlaysaa af Soomaaliga meel kasta ka yeeraay marka joogtid kan jiriskaaga aad hadda waa arkaysaa gurigayga banaankiisaan fadhiyaa kan jaarkayga ah islama fadhiisano islama sheekaysano gacmaha iska salaanaa bis waa la isdhaafaa laakiin markaa wadankaaga joogtid kan jiriska garab fadhiya kan xaafadda kan saddexaad guriga saddexaad ayaa gurigaaga jooga hortiisii ayaa sheekaysanaysiin marka dhaqankii ayaa kaa maqan iyo dabeecaddii dadkii waxyaalo badan aan dareemaynaa inkastoo aan haysano xorriyad macnaha nolol fiican nabad ya wax walba aan haysano haddana mar walba waxaa jeceshahay inaad dadkaaga la noolaato aamin caamir waa nin aanan taariikhdiisa soo sheegi karin laakiin taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheeda ninna ma diido ninna ma doonto ninna ma diido ninna ma doonto runtay dir ka qaada taariikhdu ayadaa iscaddaysa ninna ma qoro marka one day maalin maalmaha ka mid ah ayaa xasuusta amiin caamir ilmihiisa iyo ilmahay dhaleen iyo ilmahay sii dhalaan bisnoonihiisaa lagu xasuusan doonaa taariikhda iyo halka uu ka joogo farshaxanimada marka waxaan leeyahay amiin I wish you all the best